KNN nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan KNN waryaada kalamaan waqtigii fadhi ku dirirka iyo been abuurku waa dhammaaday ma shaqaad noo haysaa dan baa la rabaa ee maxaad haysaan warnimiya walna jira walna ma bajiraanba wala jira doona walna ma bajira doonanba aan haanga siin haaya warniya waxaad sheegayso wax cusub maaha adduunyada maalin waliba dad baa dhasha dadna way dhintaan muddo kadibna dad baa dhalan doona dadna way dhiman doonaan waana wax sii socon doona war waa waalantihiine ugu dambayntii ciidanka dawladda iyo amisom baa hilfaha isku qaaday hadda gurmud miyaana laka rabaa war dhacda la soo dhaafay iyo shil dhacay ha ku mashquulinine maxaa dana war ani fariinteegan ciidanka nabad ilaalinta amisom yaleere nabad ilaalinta maylka jeeda war waa waalan tahay nabad ilaalinta lama yiraah madax ilaalinta la yiraah war ma haysaane anaa war idin hayo warqadii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee ku saabsan doorashada galmudug xeefa ka jawaabay wuxuuna yiri waxaan arkay waraaqa meelaha warwareegayo galmudugna ma aha maamul cusub oo hadda la dhisaayo waa maamul dastuuri madax leh waana maamul madax bannaan warniyo madaxaaf maadan dhegaysan ee wuxuu yiri shilkii gaalkacyo ka dhacay oo dadka lagu laayay waxaa qayb ka ahaa askar ka tirsan militariga Soomaaliya qaybta 22aad hal askari oo booliska galmudug ayaa ku jiray waana xirnay buu yiri askarta kalena muqdisho ka amar qaataan mana soo xiri karno wargeega muqdisho mayba ka bahay wafdi dawli ah oo ka kooban wasiiro xildhibaano abwaana Soomaaliyeed mayna injeedana ardi sababa safar joona mayba ka saabsan aaski abwaan Maxamuud Abdullaahi Sangub inoo iyo ka qayb galan marxuunkaasna mayba la ka aasa doona magaalada Jigjiga maalintii Jimaaha baro haniifo leh oo imri caafimaad Ilaahay ni deersi warnimayo qofku markuu noolaa fikirkiisii markuu dhinto waa lagu ixtiraamaye abwaan Sangub meydkiisa macalanka Itoobiya la ugu raba war markaas saasan hadalaas meyd ma murma hata koraysan ma erne mid walaagina fadaala ka duubamay war qofku intuu nool yahay isaga tashada markuu dhinto waa loo taliya waana la aasaa meydka dadka eheladaahina mudnaanay leeyihiin marka maadaama abwaanku Itoobiya ku dhintay waa lagu aasaya warnimada war ma haysaane muqdisho waxaa ku kulmay madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Ismaan Barre hadda madaxdu in kastoon la shaacan waxay ka wada hadleen waxay wararku sheegayaan inay ka hadleen khilaaf ka jira Hirshabeelle iyo xaaladda gobolka Hiiraan wariira warka ma hayside Yuusuf Dabageed wili xilka ma wareejin madaxweyne waarana wili lama galaayo jooga war ma haysaane baarlamaanka jaamacadda carabta ariya haysta jaamacaddan baarlamaanka leemayaan arda dhigan war waa fududahay warka naga dhigayso jaamacadda carabta markoodii ugu horeysay waxay ka hadleen badda Kenya ee sheeganaysa ee Soomaaliya waxayna yiraahdeen baddu waa bad carbeed war badda Kenya u diidnay macrabteedana sheeganaysa war islaanto aad ku hormay ertay li sheegay bariyahan saqiir loo soo gal keega basaaka kaba ka gooday marka baditida walha gali war sidaas ma ahane jaamacadda carabta Kenya ayaa gardarada saartay badana Soomaaliya ayaa leh ayay tiri Soomaaliyana waa dal carab ayay tiri Kenyana gardarada ha joojiso warnimiyo horta lama qofood is galayaan waana wal garame lanki gardarada la saara ino gardarada gaadu laakiin hoob gardarada is gaadu way gungun ha ka jeedu waana Kenya warnimiyo kulan xiisa leh ayaa muqdisho ka dhacay saaxibo ayaa ka heesay war hees kuma sheegin inay dhageyso siyaasiyiin mudooyinkan wada shacabin ayaa la kula siiyay waxayna isku arkeen safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho hadda ra'iisul wasaare Khayre taliye hore nabad sugidda Sambalolshe gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Abshir Bukhari iyo xubno kale waxaase wixii sabadneed markii ra'iisul wasaare Khayre uu Sambalolshe kula kaftamay war meeshan ayaa ku ogolaaday وسينا فاتامها كقالنا قبلكم وما ينقروا هي ورنمايا وعلى يري هدي قالوا الروب تغنرقوا واسيحا يعني هل وينون حشونا إننا قلبتي ديليسا
madaxii maamushaan madax ahaanayne madax u madaxii dal waa madax wareershaane wada xirantay buu nagu wadaa awrta kii wadaya intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warwar ma haysaane ciidamada kacaanka Iiraan maanta Mareykanka waxay ka soo rideen diyaarad warwariye Jamaal Khashoggi subhanallah ma miiday musqulaha gashibe wallahi faagdo fadayte meel lagu aasabe lama arag xaq uga faagaya warwarka hayga dhax gelinne dilkiisii ayaa wali la isku haystaa war see wali la isku haystaa mar horaaba la dilay war dhimasho sugaha boqortooyada Sacuudiga ayaa baaritaan lagu bilaabay kiiskaas ayaa loogu shikisan yahay qumuro oo qaramada midowga ka socda ayaa si gaar ah baaritaan ugu haya war horta nimayaan ugu hayaabaye Sacuudigu hadduu dhimasho suga leeyahay Soomaaliyana soo fashil suga ma lahan war hal sano gurigaada ma arkin miyaadi waryaada waa murantaane dawladnimadu waa dad iyo dal iyo madax bannaani maamulkuna waa hay'ado adeeg shuruuc ku dhisan ummad u sameeya marka fashil iyo dhimasho midna uma baahna ustaad intaadan casharka ka bixin qarannimaduna maxay tahay ustaad anina faraayin taagantii casharkan ka bana dawladnimada inta hatanin akridi hadii eeta una fashilna war ustaad anina waxaan sheegayaa hadii uu qalbiga dhinto naxariistana way tagtaa hadii aqligu dhintana xikmadii way dhamaataa hadduu damiirku dhintana wax waliba waa ku daayaan intaasna waxaa cad u ah damaca warajaan leenahay hanaga duugin bahasha war naga tag wuxuu ka tagay hadii qarax dhaco dadka qaarna waa dhintaan qaarna waa dhaawacma qaarna waa naxaan warada naftaba may ba ka tabtay dhagaxyaalka jidkina dhiki qarax madidi gaara burburayaan guriyaalkana damiyeeriga kuwada buubay oo ka tab war nuu kala kaxay meesha adinka wax xanuunsan leysal carabka Soomaali wariyaasada Allah wariyaa ustaadana leewal sheegay langnimo ko weelaw oo xishooda war joojiya Allah idin dhowre